asluhub tawana xagsane heelkoogi baa lahaa horumar waxa gaadhay ardayday u tahay horseed hooyo aan la aqoonsan hooyo aan la ogeyn hooyo aan la astayn haddana aan laga oolin umulsooyaadiga ah jaamacadda Adna Aadan ayaa maanta soo qabanqaabisay munaasabadda xafladda lagu xusayay xuska maalinta kalkaalisooyinka iyo umulsooyinka munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Adna Aadan madax dhaqameed mas'uuliyiin kala duwan macallimiin arday waxaanay dhammaantood ka hadleen muhiimadda ay maalintani leedahay kulliyadda umulsooyinka iyo kulliyadda kalkaalisooyinka runtii waxaynu ogsoonahay in labada kulliyadood iyo ardayda ka baxaaba ay kaalin muhiim ah ugu jiraan bulshada u adeegisteeda sidoo kale in ay fidiyaan adeegyo ku habboon hooyada iyo dhallaanka qofka kalkaalisada inanta ama wiilka kalkaalisada ama wiilka kalkaaliyaha ah waa qofka patientka ugu muddo dheer ee ag jooga ee xanaaneeya ee la dareenka waa qofka dhakhtarku muddo yaroo kooban buu la joogaa laakiin qofka ugu badan ee bukaanka la jooga waa qofka kalkaaliya sidaa daraaddeed dadka oo dhan way idin jecel yihiin bukaankaa ilaalisaan bukaankaa daryeeshaan bukaankaa la dareentihiin qofka bukaha sidaa daraaddeed waa maalin weyn in la xuso sanadkii horena waynu xusnay sanad walbana adduunka waa laga xusaa maalinta international nursing dabaaldegaynaa kalkaaliyaasha meel walba adduunka ka joogaan waxaan u bogaadinaynaa sida naftooda ay ugu huraan uguna adkaystaan shaqadooda waxaa naftooda ka go'an in bulshada si daacad ay ugu shaqeeyaan waana wax aad u fiican mudanna in lagu dhiirigeliyo waxay siiyaan bukaanka iyo qoysaskooda taageero shucuureed iyo maskaxeedba iyagoo yareynaya baqdintooda warwarka horta muhiimadda 5 May ama 12 May maalinta nurse-ka iyo maalinta midwife-ku ujeedada guud ee laga leeyahay waxa weeyaan saakan Google gareenayo baaray aanu macallin baan ahay oo nurse-na meehi midwife-na meehi ee cudurdaar oo waxa ay ku soo ururtay in qofkaasi nurse-ka ama midwife-ka ah maanta kale waxa loo xusayaa inuu shaqada uu qabto baroor ku noqdo wiilada aanu nurse baanay I'm really happy to be a nurse aanu midwife baanahay I'm really very happy to be a midwife marka horta shaqooyinkiina aad barataan xirfadayaasha ku tiin jaamacadaha uga baxaysaan hambaliyeeya bogaadiya ku farxa qodobka labaad waxa weeyaan nurses iyo midwives-kuba inay wadaagaan khibradda waxaan la kulmay waxaan arkay inay wanaagga iyo khibradaha wadaagaan isjeclaadaan qodobka u dambeeyana waxa weeyaan inay qofka u adeegayaan ugu adeegaan sida jeclaan lahaayeen in iyaga loogu adeego waxaan laydinka rabaa waxa weeye waa mas'uuliyad ka saaran qof nool oo dhibaataysan oo culays hayo oo aan garanayn waxa hayaa wuxuu yahay oo isle bilo tolow ma laga yaabaa ma u eeg tahay ma u muuqataa inaad caawa dhimanaysaanba maanta dhimanayso oo nabarkaa ku haya aad ku dhimanayso waxaa laynaga rabaa haddaba in intaasoo dhan innaku si dadban aynu uga jawaabno oo kalkaaliyuhu uga jawaabo oo umulistu uga jawaabto oo la yiraahdo waxba ma qabtid waad fiican tahay haddaad xitaa shaqada midwife-ka ka tagto ama shaqada nursing ka tarto aad ka tagtaan macnaha weligaa waxaad ahaan doontaa qof caawiya dadka xanuunsanaya oo u gargaara oo hooyada umulaysa iyo xanuunsanaysaba ay dareenkeeda soo jiidato oo dumarka kale iyo hablaha kale qayrkiina ee baranin shaqadaasi si aanay u dareemin dumarka iyo dadka xanuunsanaya ayaa runtii u dareemi doontaan waa shaqo aad u muhiim ah maalin weyn oo caalami ah oo adduunyada from corner to corner looga dabaal degayo dadka ama ku haya gacanta bini'aadmiga oo dhan oo ah neersiga midwife-ka anigu si gooniyaan ula xidhiidhaa neerska maalintii aan dhakhtarka ka soo jaamacadda ka soo baxay yaa waxa laygu soo tuuray cam la yidhahdo halkan dam cam
وسديتك متكينا ما دام بانو مالينيا تماي كانوا اسك عاديين ما ويني markaasa dhakhtar baan ahay markaa laakiin waxa laale deem aan ugu horeeyo practice aan qabtay ma jirto waxa gacanta igu qabtay oo wixii baray oo aan halka aan maanta joogay soo gaarsiiyay waxay ahaan kalkaaliyaal iyo umulisooyin Somaliland oo maanta qaarkood nool yihiin ay joogaan maanta waa maalin qaali ah waana maalin wanaagsan siiba aniga naftaydu waxaan ku farxay hablaha inta leh shacniyo wanaag anwaac waashkaal oo aan hore wali u arag hablo Soomaaliyeed oo qalin jabinayo inta leeg way farxad talabaadna waxa weeye aan faraxa igu wacan yahay waxaan aqoonsanahay hooyada wax baratay iyo hooyada aan waxba baran aad iyo aad waa gaab weyn baa u dhaxeeya waayo hooyada wax baratay ubadkeeda ilaa jidka jid inta nooshahay waa macallimad horta waxaynu rahnaa nursing iyo midwife hadaynu isku qaadno waxa weeye waa backbone of health care system yani markaynu system ka hadlaynana si sabab system wax la yiraahdo waa yani waa wax ka kooban dhowr qaybood kala duwan kaasoo isku xidhan hadii mid meesha uu ka baxo yani aanay wax functionina ama si yani shaygaas wax shaqeynaya aanu noqonayn markaas daraadeed nursing markaynu ka hadlano waxa weeye waa backbone-ka ama yani waxa weeye waa shaygaas laf dhabarta waa imka laf dhabarta maanta qof bilaadan hadaynu example soo qaadno yani laf dhabarta meesha inuu jito garanaa qof yani xangulihii go'ay ama shil galay qofkii arkay un baa garanaya oo digibigiisa oo paralysis noqday oo saxarada iyo wax walba ay ka soconayso marka waxaynu inagu nahay the backbone of health ayaynu nahay marka waa inaynu saa ula soconaa marka waxaan ilaahay hadalkii badin maayo hal dardaaran baan idin siinayaa oo aqooneeda waxaan idin sheegayaa meelo badanna waan ka sheegaa anigu chemist baan ahay waxaan jecelahay inaan markaan arko nursing iyo midwifery arko ama caafimaad arko qodobka waan sheegaa laga yaabaa inaan horeba idinku sheegay waxaa jira markaan nabarrada aynu safaynayno dadka xanuunada meelaha buka waxaynu ku safaynaa sodium chloride waa milixdeed markaynu dhinac kale uga wareegno waxaynu ku safaynaa hydrogen peroxide H2O2 labadaba waynu ku safaynaa hydrogen peroxide dilute baa laga dhigaa waa la khafiifiyaa haddii kale waxbay gubaysaa laakiin marka la isku daro labada waxbay safeeyaan haddaynu isku darno maxaa imanaya waa su'aal meesha taalla haddaad isku darto waxaa ku imanaya hydrochloric acid oo khatarteeda leh markaa waan idinka digayaa uun labada inaydaan is odhan baawarku ha weynaadee mid walba goonidiisa u isticmaala inta kalena ku booriya uu sheega waxaan bogaadinayaa dhammaan dadka mihnadaha kala jaadkaa leh mihnadda neersinka ama kalkaalisanimada iyo mihnadda midwife-ka iyo umulisada labadaba waan tahniyadaynayaa waan hambalyaynayaa waxaan ku hambalyaynayaa mudanta ay yihiin waxaan ku hambalyaynayaa xilkay qaranka u hayaan